qodobo ka kooban ilaa 18 qodob ayaa ku xusnaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirka wadatashiga midowga musharaxiinta oo ka qabsooma halkan waxaana qodobo ka mid ah shirkan ay ahaayeen kuwa si aad ah looga biidiidsan yahay hanaanka ay dawladda federaalka Soomaaliya ay u maamulayso doorashada midowga musharaxiinta ayaa codsaday in guud ahaanba gudiyada ay dawladdu u magacawday doorashada la kala diro sidoo kale waxay ku baaqeen in gabi ahaanba xilku isaga tago Fahad Yaasiin oo ah taliyaha hay'adda nabad sugidda oo ay sheegeen in uu ololaha u wado sidii uu dib doorashada Soomaaliya ugu soo laaban lahaa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo midowga musharaxiintu waxa ay sheegeen haddii dawladda federaalka Soomaaliya ay wax ka bedeli weyso hanaanka iminkan ay u wajahayso doorashada Soomaaliya iyaguna ay dhisi doonaan guddi loogu magac daray badbaadinta qarannimada Soomaaliya oo gaar u abaabuli doona doorasho ka madax banaan tan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo warbaahinta uu la wadaagay warmurtiyeedka afayeenka midowga musharaxiinta Ridwaan Xirsi Maxamed oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya in madaxda dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya aysan gudagelin qabasho doorasho aan la isku waafaqsanayn iyo inay masaafo isku mid ah u jirsadaan musharaxiinta taageeradoodana aanay ku goynaynin musharax gaar qodobka toddobaad in loo howlgalo xaqiijinta qoondada haweenka oo ay xaq u leeyihiin 30% inay ka helaan golayaasha qaranka. sideed in la helo korjoogto ka socota ururada bulshada rayidka ururada qareennada xubno ka socda golaha musharaxiinta iyo wakiilada beesha caalamka si loo xaqiijiyo hufnaanta iyo daahfursanaanta doorashooyinka. sagaal in guddoonka iyo xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay qaataan kaalintooda ku aadan ilaalinta ku dhaqanka dastuurka iyo dhammaan shuruucda kale ee dalka gaar ahaan qodobada khuseeya arrimaha doorashooyinka qaranka. qodobadaasi waxay ahaayeen go'aamo ku saabsan maamulka doorashooyinka go'aamo ku saabsan xagga ammaanka doorashooyinka ayaa runtii goluhu soo saaray waxaa ka mid ah qodobka tobnaad oo ah in madaxda dawladda federaalku ay ka saaraan ciidamada qalabka sida ku lug yeelashada howlaha doorashooyinka sida uu dhigayo qodobka 127 ee dastuurka dalka. qodobka 10aad in iyada la cuskanayo mabaadi'da ku xusan dhammaan faqrooyinka qodobka 127aad ee dastuurka kumeel gaarka ah oo taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo dhameeyo xilka hoggaanka miisa maadaama uu yahay madaxa ololaha dib doorashada musharax madaxweyne ee xilkiisu sii dhammaanaya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo si loo sugo dhexdhexaadnimada hay'adda sirdoonka qaranka. dhinaca kale gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isna warbaahinta la hadlay ayaa waxa in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ugu baaqayaan inay dalka ka hirgeliso doorasho xalaal ah waxa uu ballan qaaday in iyagu ay raali ku noqon doonaan haddii dawladdu wax ka bedel ay ku sameeyso hanaanka iminkan ay u wajahayso doorashadu inay la shaqeeyaan. annaga guddiga doorashooyinka habka loo xilay kuma qanacsanin waxaan aaminsanahay sharciga in loo jebiyey ujeeddo gaar ah in loo sameeyey marka waxaan soo jeedinaynaa in la bedelo gebigoodaba. maanta qofka kursiga ugu fadhiya kan beri u soo socda waxaa sharaf iyo wanaag ugu jira inay xaqa u laabtaan. waxaan rabaa miisaal inaan idiin sheego Sayd Cumar radiyallahu anhu wa ardaa waxyaabaha uu dardaarmay waxaa ka mid ah saxaabada haddii aad khalad gasho oo aad ogaatay inaad khalad gashay khaladkaa ka laab sababtuna waxa waaye inaad khaladka ku adkaysatid iyo inaad xaqa u laabatid xaqa inaad u laabataa fiican ayadaana dadnimadu ku jirtaa. annaga dawladdu hadday sharciga ilaalisay oo heshiiskii ilaalisay ma haysano laakiin hadday jebisa ka warrama waxaan ka hadlayna waa sharci waa heshiis waxaa ku heshiiyey dawladda kumeel gaarka dawladda iyo waxaa ku heshiiyey maamul goboleedyadii waxaan rabnaa heshiiska sidoo ahaa in loo fuliyo. dhaqan waxaan u yeelanay Soomaali haddana heshiis in la galo haddana meel la iska dhaw
arrintaas waxaa ogaateen dhaawac weyn dadka Soomaaliyeed ka soo gaaray arrin fiicanna ma aha waxaa la rabaa wixii lagu heshiiyo sida loogu heshiiyo in loo fuliyo dowladnimada asaaskeeduna waa wax lagu heshiiyo la fulinayo wax kale ma aha marka annaga waxaan rabnaa sharciga in la ilaaliyo sharciyada in la ilaaliyo heshiisyada in la ilaaliyo doorashooyinkana si nabada oo xalaal ah oo kalsooni leh in lagu qabto waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo doorasho in la qabto horta maxay u baahan number 1 waxay u baahan tahay kalsoonidiyaa jirta hadda doorasho lagu galo doorasho aan kalsooni lagu gelin maxay keeni kartaa bal ii sheega fawday keeni karta dalkan miyaa fawdo ximbaari kara waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan eray bixinta cusub ficil colaadeed iyo eray colaadeed dowladdu waxay isku dartaa ficil colaadeed iyo eray colaadeed si isugu dartaa ficilka colaadeed waxa waaye inay garab marto sharciga si uu u boobto ficilka colaadeed kaas waaye erayga colaadeed maxaa waaye raalliga ahaada waa fududaanaya nimaro masaakiina oo waxaan macnaheyn loo sheegay oo dadka ayal leeyahay shirkan ayaa si aad ah waxa loogu dooreeyay guud ahaan dalka Soomaaliya natiijada ka soo bixi karta waxaana imikan wixii ka dambeeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya looga fadhiyaa in war rasmi ay ka soo saarto war murtiyeedka halkan ka soo baxay oo baaqi kala duwan loogu diray